وإذن سلامة أنت سماها جعل وفرحية كبيرة وحان لي يابنهي وحان مغلي هدا وحير كهريا وحال إي شيء إن فنانين أسعد مقدش أو نيويورك إن شو كان أي إسطنبول شوغان ويترنسد كويهن فنانين تاسو ما أركتي وفنانين أنا قول عليها وفنانين أنا اسكو مجال اسكو وطن دجنا هاي سدا أوجيدين بحمر أنا جاي نيويورك كباغضي وحنيجا باتشي شخص صومالي ونن marka meesha aniga layga banaday oo aniga laygu xumeeyay ay ku dhiiradeen inay aadaan sanadkan horta taas waa nasiib darro waa disrespect iyo xushmad xumo ay aniga ila bareereen inay igu sameeyaan waliba ayagoo ah fanaaniintii shalay arooskayga labadayda garab fadhiyay waxa kale oo ka sii daran bayjadkooda kuma soo qorin ilaa fanaanku meeshuu aadayo iyo uu is update gareeyay wuxuu yiraahdaa halkaas aan soo socdaa sida aan ugu basheego markasto marka ma aysan soo sheegin maysan ku faanin inay xamar u socdaan waa dhuunteen Istanbul ay hadda joogan hadda la sheegay hadan ka war hayaan hadan ka war helay marka waxa disrespect ah fanaaniin Yurub joogto oo walaalahay ah oo aan aqoon isu lahayn ayuu ninkaas soo wacday kuna yiri xamaraan raba inay New York ugu imaataan waxay ku yiraahdeen soo ma tiid ninkii ka bayro xumeeyaha iska ilo weebo marka waxa nasiib darro ah oo aad wax looga naxa ah laba fanaan oo walaalahay aniga shalay garabkayga fadhiyay labadeeda garab kala fadhiyo aniga ii heesay arooskaygi oo garabkayga soo istaagay inay ma aragtay aniga xumaantayda iyo in aniga oo ma aragtay lay xumeeyo inay qayb weyn ka noqdaan oo isaas ku baxaan oo xamar tagaan aadan uga xumahay waxa kaloon ka xumahay ballanqaadkii ay ballanqaadeen mulkiilayaasha Siri Plaza ay igu yiraahdeen farxiyoy show kama dhacayo New York Muqdisho maadaama adiga lagu xumeeyay ninkaasna hoolkeena kama kireynayno mulkiilayaasha Siri Plaza dad kamid ah aniga ila soo xiriiray after videogayga markay arkeen videoga hore marka taas waxay cadeynaysaa inaan wax ma aragtay ballanqaada ama cadaalad ah aysan ka jirin Muqdisho waxa ku soo haray waxaan rabaa inaan u baaqo dadka Soomaaliyeed ee lacagta haysta ee mulkiilayaasha Ilaahay xoolaha siiyay walaalayaal wadanka ceeb waay naftirkeena ceeb ay nagu tahay in Muqdisho dhan Siri Plaza oo kaliya inuu ka shaqeeyo Siri Plaza oo wuxuu raba sameeynaya hadii fanaan la xumeeyay aan kala jeclayn hadii qof kale la disrespect garay aan kala jeclayn ayagu uun meeshooda kireysanaya inay ma aragtay taas ay caqabad ku noqoto fanaan kasta fanaaniinta inay waxay rabaan sameystaan because Siri Plaza kaliya laga heesaa saabtiin Muqdisho marka waxaan ku guubaabin lahaa in businessku hore u maro oo million hotel oo Siri Plaza ka fiican xamar laga helo ayaan jeclaan lahaa kow waxaan kaloo aan la hadlayaa xamar waxaan rabaa inaan ka hadlo anigu waxaan ahay maanta qof wixii ay dareento ama ay qabto ama uurkeeda ku jirto afkeeda ka sheegayso sidaydaba wax ma qariyo wixii aan dareemo oo qalada waan ka hadlaa qof kasto dulmarna inaan u hadlaan jecelahay saa anigu isugu hadlaayo marka imisa qof oo Soomaali ah ayaa ku dhibana u maleynaysin xamar oo lacag loo adeegsadaa ya meeqad u maleynaysin إلا أنا أقول إلهي باور حوسي أفكيك عنكو هذا الموت هذا حتى إحنا يسنا أنا قف دبدة شوكتان هاي هذا بأستراليا شوكا برنامج كله هاي يوروبان صومر وأركيسين برنامج ده مركا إني سقفوا عن فنانين بهين أو أود يلعق الله شيء أنا يا مقدس الحين هذا كنا ولا ملينيسين إلهي نوبريا إنه عدالة دم عرفت إلهي نقسمه إن إلهي وضن كين إنه هجاتشيو إن أنت حنا إلهي ما قبته إن وحكالو أن له ما أقانو لكن وحان إذن شيء يا مسج كاس إن إذن سو جود بنا وما أركتي كي هي شيء إن مرخاتي إن أي disrespect تهاي أي عيب تهاي أي خلط تهاي حمرني وكل شيء أنت أنا كسول لك هذا استال براندي كل شيء هذا نواقو قري إن حمرنا أيضا سان كحل أيان تجي سان أيضا كدرن أيان تجي وأمن جو سان أهين أيان تجي وأوجدين تاريخ ضيدنا يوتيوب يكون شتى يا أنا عيدا كقرق الصومالي تلحي استاجي كيف ودي سما قاطع صو هيسي marka in anigu xusmad xamar ka heli waayo ya oo fanaaniin aniga waliba aan isnaqaanana la igu disrespect gareeyo la igu bahdilo heerkaas ninka gaari xamar uu ku nool yahay kale duud waayelo ku dangiiga anna xamar waxaan ka ahay ku darsada idinku waa sida ay noqon karto loo dhigayno ma fahamteen marka aad salaamaya inta samaha jecel xaalku halkaas oo marow haya marka waxaan leeyahay fanaanimana iyo fanaan isxushmeeyana hadda waa u jeedinay fanaan isxushmeeya la arki jiray fanaanka kala respect gareey laakiin halkaas ay maraysaa in labada qof oo aniga shalay garabkayga arooskayga fadhiday
ay u dhuuntaan xamar waan hadda ka warhelan Istanbul joogan aadan uga xumahay waa idin salaama inta samaha jecel kor Allah ka dhigo reer Muqdisho waa idin salaamaya in badan insha Allah waa idin imaanaya waqtiguna saama sii ahaan doono love you guys khayran idin rajayha shanana